haddii aad tahay muslim laguma ogola inaad yeelato milkiyadda teendho jiheeye qiblo ama aad haysato cunto dheeri ah ama aad yeelato lambar WhatsApp cunidda quraacda ka hor soo bixidda qorraxdu waa dembi haddii aadan cabin sigaarka waa dembi kale haddii aadan cabin qamrada iyaduna waa dembi kale haddii aad ku oydo ama ku baroorato goobaha dadweynaha marka ay geeriyoodaan labadaada waalid shaki la'aan waxa aad u geli doontaa xabsiga kuwani ma aha xeerarka adduun mala awaal ah oo ku jira filim ama masraxiyad balse waa waaqica iyo xaqiiqada ay ku nool yihiin 10 milyan oo muslimiin ah oo ku nool Shiinaha 1 milyan oo kamid ah xukuumadda Shiinaha ayay u xiran yihiin waliba lama yaqaan ilaa inta ay xirnaan doonaan loomana soo jeedin wax eed ah haddaba maxaa ka dhex socda jamhuuriyadda shuuciga galbeedka fog ee Shiinaha wadnaha gobolka Xinjiang oo ay ku nool yihiin qiyaastii 10 milyan oo muslimiin ah oo kamid ah dadka laga tirada badan yahay ee Uyghur ayaa dabool qaadaya cidda ka dambaysa dhibaatada haysata muslimiinta Shan Shuangguo waa ninka iska leh aragtida xeryaha afduubka oo ku yaala gobolkaas waana xubin sare oo ka tirsan xisbiga shuuciga Xinjiang ayaa loo dhiibay xilka maamulka gobolka kadibna waxa uu kaadirka xisbiga shuuciga ah ee talada haya u diray tuulooyinka dadka Uyghur waxa uuna baro dadka lagu baara dhigay meel walba oo ka tirsan gobolka waxa uu xiray masaajidii waxa uu isku keenay dheecaano nucleic acid ah oo uu ka qaaday dadkaas iyo calaamadaha aragga indhaha ee dadka deegaanka Uyghur waxa uu meel walba oo ay joogaan Uyghurku ku xiray ama ku rakibay kaamirooyinka la socoshada oo duubaya muuqaallo waxa uu si faahfaahsan u furtay dhammaan waxa ku jira qalabka ay sitaan ee digitalka ah intaas oo dhan waxa ka sii xun waxa uu dhisay golayaal hanuunin oo loogu yeeray dib u soo celinta wacyigelinta kuwaas oo ay hadda ku jiraan qiyaastii 1 milyan oo qof oo kamida muslimiinta laga tirada badan yahay ee Uyghur xukuumadda Shiinuhu waxa ay ku sheegtay golayaashaas hanuuninta isbitaallo maxaabiista ku jirtana waxa ay u taqaanaa bukaan ay waajib tahay in maskaxdooda laga dhaqo fayraska diimeed sida ay ku sheegtay iyo dib u soo celinta wadaniyeyntooda iyo ilbixintooda siyaasad ahaan waxa lagu qasbayaa inay tuuraan oo ay ka tagaan islaamka isla markaana qaataan caqiidada shuuciyadda ayna ku celceliyaan halku dhigyada xisbiga shuuciga waxay nagu qasbayaan inaan daawanno filimo ammaanaya madaxweynaha iyo xisbiga shuuciga waxay noo sheegeen inuusan jirin wax la yidhaahdo diin isla markaana uusan jirin ilaah maxaabiistu waxa ay ku jiraan xabsi keligood ah muddo dheer waxaana loola dhaqmayaa si xun oo ciqaab iyo dhaqan xumayn leh qaybta aadka u sii xun ee sheekadu waa dhiman tahay waxaa jira hanjabaad sheegaysa inuu dhici karo xasuuq iyo dabargoyn guud sidaasna waxa si cad u sheegay xukuumadda Shiinaha iyada oo ku daabacday wargeyska Global Times oo dawladdu leedahay waxaa suuragal noo ah in aan kaashanno dhammaan tallaabooyinka xaqiijinaya deganaanshaha Shiinaha ilaa heer uu imaan karo dilwadareed xasuuquna waa arrin aan fogeyn balse maxaa si gaar ah loogu bartilmaameedsaday haybta Uyghur asal ahaan isirka Uyghurku waxa uu ka soo jeedaa shacabka Turkiga waxa ayna 45% ka yihiin dadka deegaanka gobolka Xinjiang oo loo aqoon jiray horaantii qarnigii 20aad Turkistaanta bari xilligaas oo ay Uyghurku ku dhawaaqeen madax bannaanidooda muddo gaaban ka hor intii aan gobolku u gacan gelin shuuciyadda Shiinaha sanadkii 1949 iyada oo magacii gobolkuna isu rogay Xinjiang laga soo bilaabo xilligaasna waxa gobolkani ku jiray gacan bir ah iyo ilaalo adag iyada oo Shiinuhu cabsi ka qabay dib u soo noqoshada isku dayga madax bannaanidoonka taas oo dadka Uyghurku weli ku taamayo masawirka madaxweynaha Shiinaha ayaa meel walba oo ka tirsan gobolka la suray isaga oo u dhigan astaanta ummadda Shiinaha iyo ilaaliyaheeda sida ay sheegtay majallada Foreign Policy ee Mareykanku taasna waxa looga gol leeyahay si loo soo celiyo soo noolaynta astaamihii qof caabudka oo la dhintay asaasihii jamhuuriyadda shuuciga ah ee Shiinaha haddaba si loo xaqiijiyo ujeedadaas Shiinuhu ma waxa uu dilayaa qof walba oo diida inuu u sujuudo hogaamiyihiisii